10 calaamadood oo lagu garto naag qiimo sare leh iyo sida loo noqdo. Haddii aad rabto warbixintan oo kale fadlan guji sabskraibsi. Aad u hesho warbixina intaan ka badan ha iloobin inaad nagu soo biirto mahadsani. Ma tahay qof dumar ah oo qiimo sare leh? Haweenayda qiimaha sare leh waa mid aan u muuqan oo kaliya muuqaalkeeda ama guulaheeda, laakiin sidoo kale maskaxdeeda. Halkan waxaan ku taxnaa qaar ka mid ah sifooyinka iyo caadooyinka ka sooca inta kale. Way garanaysaa qiimaheeda. Naag qiimo sare leh ma eryan dadka kale, mana raadsato aqoonsi dibadeed. Taa beddelkeeda, way ka warqabtaa awooddeeda oo waxay ixtiraamtaa xuduudaheeda. Si kalsooni leh ayay ula hadashaa. Haweenay qiimo sare leh waxay ku kalsoon tahay maqaarkeeda. Si cad ayay u hadashaa, si firfircoon ayay u dhegaysataa, kamana fogaato inay sheegto baahideeda iyo aragtideeda marka loo baahdo. Way dareentay. Ha ahaato shaqadeeda, hiwaayaddeeda ama sabab, naagta qiimaha sare leh waa mid dareen leh oo ujeedo wadata. Tani waxay dadka ka dhigaysaa inay eegaan iyada. Wax yar kuma degto. Haweenayda qiimaha sareysa waxay ku riyooto riyooyin ka waaweyn nolosha, mana ka fogaato inay xaqiijiso. Waxay nafteeda u dejisaa heerar sare, ha noqoto jacayl, shaqo ama nolosha, wayna u shaqaysaa iyagana. Dareen ahaan way qaangaadhay. Halkii ay si degdeg ah uga fal celin lahayd, way aamustay, dib u milicsatay, oo si xikmad leh uga jawaabtay. Lahaanshaha garaadka shucuureed sare waxa ay ka caawisaa in ay isdejiso marka cadaadis la saaro oo ay samayso doorashooyin sax ah oo nolosha ah. Laga soo bilaabo caafimaadka dhimirka ilaa barashada iyo isdaryeelka, haweenayda qiimaha sare leh waxay si joogto ah u shaqaysaa nafteeda si ay u noqoto nooc ka wanaagsan. Kuwa kale ayay kor u qaadaa. Naag qiimo sare leh waxay kor u qaadaa oo awood siisaa kuwa kale, iyada oo aan la khafiifin iftiinkeeda. Tani waxay ka dhigaysaa dadku inay eegaan iyada. Waxay dejisaa xuduud caafimaad qabta. Gabadha qiimaha sare leh way ixtiraamtaa nafteeda, sidaas awgeed kama labalabayso inay maya dadka kale tidhaahdo marka loo baahdo. Way og tahay in aanay jirin wax ka muhiimsan oo ilaalinaya nabadgelyadeeda iyada oo aan raaligelin laga bixin. Way ku faraxsan tahay kaligeed. Waxay ku raaxaysataa shirkaddeeda oo uma baahna xidhiidh si ay u dareento dhammaystiran. Ku qaadista waqti kali ah waxay gacan ka geysan kartaa dhisida kalsooni gudaha oo xooggan. Waxbarashadeeda way sii wadaa. Naag qiimo sare leh weligeed ma joojiso kobcinta iyo noqoshada nafteeda ugu fiican. Waxay sii barataa khaladaadkeeda oo ay u korto qof ahaan.